ay nagu soo booqdeen heesta ugu dambaysa waxaan u yeeri doonaa Xamse Cabdilaahi iyo Nimco hees Talantaaliya oo qoob ku ciyaara oo ku soo gabagabeyn doona barnaamijkeena hay soo dhawaada haye heesta waxaan le abwaan ka tirsan wasaaradda warfaafinta haye abwaan Jilbacuur أحمد عبد الرشيد حسن Jilbacuur وصاحبكي aad baan u salaamay isaga qoyskiisaba goobtana way nagu la sugan yahay baaban filaya abwaanko laxankuna waa dalab duguna waxa weeye waa suldaanka muusiga waa tahay aan idin kala baxo adiga iyo Nimco iyo wacdaraha iyo qoobka ciyaarka halka ka dhaca dhamaantii waa Nimco watahay daawadayaal intaas waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka ciida oo ay marti inoogu hayeen kooxda Dayaxbaan heestooda ugu dambeysay maba kala dhacno ayaan oranayaa aniguna dhamaantiin ma kala dhacdaan haday noqoto codka iyo dhan walba iyo muusiga iyo laxanka iyo heesaha kala duwan ee barnaamijka ciida aad nagala qayb qaadateen aad bay u mahadsan yihiin munaasabada ciidana waxaan ku salaameynaa iyaga iyo eheladoodaba intaas waxaynu daawadayaal ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka ciida ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo idinka imanayay xarunta guud ee telefishinka qaranka ee magaalada Hargeysa howlwadeennada kala duwan ee barnaamijkan igala qayb qaatay ee sida hagar la'aanta ah ay ku soo gudbinaya ugu horeeya agaasimaha
حسن محمد شامع حسن بان روما جمعاله وعلي إبراهيم عبد عمر جبريل سيدو كلام محمد سليمان فرحان فيناد فارح عبد ولي سمرية إمران خان يسيدو كلام أحمد عبد الرشيد جلبعور حمزة منير يا دمان خيارته كلام يقول قيب قادته برنامج كني aad bay u mahadsan yihiin iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee telefishinka qaranka ee sida hagarlaanta nagala qayb qaadanaya ee baahinta sida tooska hadda ugu jira intaynu ku kulmi doono barnaamijkani barnaamij xiga waxaan dhammaantiin idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh